Assalaamu calaykum. Waxaan barnaamijkeena kusoo qaadan doonaa lamaanayaal ku caddayn doona inaanu jacaylku indho lahayn. Sidoo kale, kala duwanaanshaha labada qof muhiim ma aha marka laga hadlayo jacaylka dhabta ah. Jacaylku waa dareen qofka ku beerma oo Alle u sameeyey inuu ku dareemo waxa uu xiiseynayo amba naftiisu u baahan tahay. Jacaylku waa dareen iyo farxad qofka Alle kaga beeray qalbiga. Qofka uu rabana waa uu jeclaadaa, kuusan rabina wuu nacaa. Haddaba haddii aynu halkaas ku yara joojino waxa uu jacaylku yahay, aynu u soo daadegno barnaamijkeena iyo waxa uu ku saabsan yahay ee kusoo dhowow daawada barnaamijka. Kylie Jones waa nin 31 jir ah kana soo jeeda Pittsburgh. Waxa uu doorbiday inuu xiriir la wadaago gabadh aad ugu weyn. Wiilkan ayaa xiriir la sameeyey haweeney 91 jir ah oo lagu magacaabo Marcia. Gabadhan uu guursaday ayaa 2 jeer kusoo labalaamaysa Kylie Jones, waxayna ka weyn tahay 60 sano. Labada lamaane kulankoodii ugu horreeyay ayaa ka dhacay dukaan lagu iibiyo buugaagta, halka Marcia ay ka shaqaynaysay 2009kii. Marcia ayaa ahayd kahor barashadii Islaan keligeed nool in muddo 37 sano kadib markii ay kala tageen ninkii hore u qabi jiray. Kylie wuxuu qirtay inaysan ahayn markii ugu horreysay ee uu la sheekaysto dumarka da'doodu ka weyn tahay 2 ilaa 3 jeer da'diisa. Inkastoo ay u muuqato waxaan caadi ahayn, haddana waxa uu sheegay in qof walbaaba uu leeyahay dooq isaga u gaara. Lamaanihii ugu da'da weynaa waxay qisadan jacayl ka dhacday dalka Brazil. Ninkan ayaa lagu magacaabaa Rodrigo Oliveira. Waxay da'diisu jirtaa 106 sano, halka Abricada Job ayayna jirto 146 sano. Oliveira ayaa kula kulmay Abricada Job beer ku taala guri lagu xanaaneyn jiray. Gurigaasoo ku yaalay dalka Brazil, halkaasoo ay dareen jacayl isku weydaarsadeen. Sidoo kale, labada lamaane ayaan hore wax guura u soo marin. Guurkanina uu yahay guurkoodii ugu horreeyay intii ay noolaayeen. Midkoodna wax caruura ma laha. Maray Abricada Job laga wareysanayay wargeyska Daily Mail ayaa waxay sheegtay inay aad u jeceshahay isaga, haddii uu dhintana ay ka daba dhiman doonto. Faraq yar ayaa u dhexeeya lamaanahan xagga da'da, waxayna kala weyn 40 sano. Sidoo kale, waxa uu yidhi Rodrigo Oliveira, wax micnaa ma lahan da'du haddii aad nolosha ku wada qaadanaysaan farxad. Waxaana guurkoodii iyo riyadoodii u fulisay urur mutacawadiina oo ka shaqeeya fulinta himilooyinka waayeelka. Labadan waayeel waxaa xafladoodii aroos ka soo qayb galay 150 marti, halka ay 40 ka mid ah ay ahaayeen waayeel. Hamdan Hashim waa 30 sano jir, halka Noor Hidaya Xasan ay iyaduna tahay 29. Labada lamaane ayaa isku guursaday waddanka Malaysia, waxaanay noloshu ugu socotay si wanaagsan. Balse nasiib xumo, 3 sano wax walbaaba waxay isku bedeleen sikadiisa. Hamdan Hashim isagoo ka shaqaynaya warshadda dharka, waxaa dhaawac culus oo noloshiisa oo dhan saameyn weyn ku yeeshay kasoo gaadhay indhaha kadib markii ay kiimikaalka ay kaga daateen. Wuxuu aaday rugta caafimaadka si loo daaweeyo. Dhakhtarku waxa uu siiyey daawada indhaha iyo kiniinada si uu uga yaraado xanuunku. Si kastaba ha noqotee, wax ka yar 24 saacadood ayay xaaladiisa isku beddeshay oo afka iyo indhaha ayaa bararay, waxaana la keenay hosbitaalka Malaika si loo daaweeyo si xaaladiisa wax looga qabto. Laakiin nasiib xumo, may haysan dhaqaale si ay u helaan adeeg caafimaad oo tayo leh. Hamdan waxaa jirkiisa oo dhan ka soo baxay finan yaryar oo cascas, waxaana saameyn weyn ku yeelatay kiimikaalkii indhaha kaga daatay. Hamdan keliya waxun buu maqli karaa, saas waxaa tiri xaaskiisa. Bulshada ay la nooshahay Noor Hidaya ayaa waxay kala kulantay dacaayado ku saabsan jacaylkeeda, waxayna inta badan dadku kula taliyaan inay iska furto oo ay nolol fiican raadsato. Sidoo kale, waxa uu sheegay ninkeedu inay qof kale iska guursato, laakiin way ka diiday iyadoo doorbiday inay nolosheeda inta ka hadho dhan agtiisa ku qaadato. Waxayna tiri, waan ku dadaalayaa sidii aan ku heli lahaa qaab aan isaga ku daaweynayo. Nasiib wanaag, Hamdan xaaladiisii way soo caafimaadaysaa, waxayna labada lamaane caawinaad ka heleen dad badan, kuwaasoo ugu deeqay lacag. Arif Ibrahim iyo Aamina Axmed Sheekh waxay jirtay 21 sano jir markii ay baratay Arif Ibrahim oo isagu jiray 32 sano. Waxay labada lamaane ku nool yihiin dalka Hindiya, waxayna labadan lamaane isku barteen dukaan lagu hagaajiyo moobilada sanadkii 2011, waxayna isbarashadoodii socotay muddo. Aamina iyadoo ka caawin jirtay Arif waxyaabo badan maadaama uu yahay mid aad u gaaban,
Bulshooyinka iyo dhaqamada kala duwan ee ka jira dalkaasi Hindiya ayaa waxay aaminsan yihiin inuu markay laba lamaane isguursanayaan inuu ninku ka dheeraado gabadha uu guursanayo, balse dhaqankaasi kamuu hor istaagin guurkoodii iyo jacaylkoodii. Arif ayaa ka walaacsanaa markii uu soo bandhigayay guurka inay diidayso, laakiinse Aamina way ka yeeshay, waxaana uu sheegay wax walba u baahan yahay, sida inay u qaaddo suuliga, maydhashada iyo wixii kale la mid ah. Aamina ayaa la kulantay dhibaatooyin xagga jacaylkeeda uga imaanayay, laakiin waxaasoo dhan umay joojin. Qoyskii ay kasoo jeeday Aamina kamay soo qaybgelin arooskeedii, waxayna haatan labada lamaane isku leeyihiin ubad. Jacaylkan ayaa ka duwan kuwayn hore u soo marnay. Weli maankaaga ma ku soo dhacday gabadh ayaa laba nin isku mar wada guursan doontaa. Gabadhan oo lagu magacaabo Maria Butuski ayaa ku nool waddanka Ingiriiska, waxayna isku mar wada guursatay laba nin, waxaana labada nin lagu kala magacaabaa Peter iyo Paul. Labada nin ay guursatay ayaa ah saaxiibo, labaduba waxay wada jeclaadeen in muddo ah markoo midba xiriir la lahaa, kadib waxay ku heshiiyeen inay labadooduba wada guursadaan, halka Peter uu xidhiir la lahaa ilaa yaraanteedii markii ay iskuulka dhigan jirtay. Sidoo kale Peter ayaa ah maamula shirkadda dhisme. Arrintan ayaa fajaciyay ama kaab ku noqotay dadkii maqlay sheekadooda. Sida lagu soo xiganayo wargeyska Mirror ee ka soo baxa dalka Ingiriiska, waxay tiri Maria, waxaa jira faa'iidooyin badan oo wada noolaanshaha. Tusaale ahaan, maadaama aniga iyo Bob shaqada aadno goor hore, Peter waxa uu awoodaa inuu carruurta u kaxeeyo dugsiga. Ugu dambeyntiina carruurtu way ka faa'iidaysanayaan 3 qof oo waaweyn oo awood u leh inay ka caawiyaan shaqada dugsiga amba waxyaabo kale ay ka saacidaan. Waxay intaasi raacisay, waan ogahay inaan aad nasiib u leeyahay inaan noloshayda ku helo 2 nin oo cajiib ah. Waxaan u wada noolahay sidii koox ah, midba midka kale kama hinaaso, ayaa ay tiri. Waxaynu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena. Fadlan noogu reeb qaybta hoose ee commentiga fikirkaagu wuxuu yahay. Sidoo kale subscribe saar haddii ay tahay markii kugu horeysay, si ay kuu soo gaadhaan muuqaalada xiisaha leh ee aan soo gelin doono hadduu Alla idmo.